السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان سوماليين ميل walba daawanaysan aad iyo aad baan idin salaamayaa walaalayaal waa kanaalka aqoon bile academic insha Allah taala intaan cashirkii xisaabta aanan bilaabanin oo maanta qaadanayno waxaan inaga codsanayaa kanaalka inaad like saartaan matqana subscribe gareysaan like saartaan share-dana badisaan si walaalaha kale ay uga faa'iideystaan oo arkaan comment-gana wixii su'aal aad igu reebtaan insha Allah taala waa ballanteenu waa aqoon bile academic insha Allah taala haddana maanta waxaan qaadanaynaa aan ku jirnaa wali fraction-ka aan ku jirnaa square fraction aan ku jirnaa maalmihii isbuuceed aan soo dhaafnay waxaan idin weydiiyey homework idin diray oo in the work to do what is the square of one whole number 1 over 2 a whole number 1 over 2 kana idin diray square oo homework it so what is the square of a whole number 1 over 2 ayaan idin diray hadda ka shaqeyseen alxamdulillah haddii aad ka shaqeynina horta waa square garaynaysa waa times 2 waa square garaynaysa kadib markii san u square garayso waad arkaysaa oo maleeyaa waxaad ku dhufanaysaa 2 times 1 aad leedahay labadan waxaad ku dhufanaysaa halkaas waxay noqonaysaa 2 waxaad ku daraysaa halkaas si fiican aad ila socotaan 2 dan waxaad ku dhufanaysaa halka meesha yaalla whole number-ka 1 times 2 markay noqoto 2 bay ahaanaysaa kadibna markii labadii waxaad ku daraysaa kaas waxay noqonaysaa 3 marka 3 over 2 ay noqonaysaa inta dhiganaysaa waxay noqotay 3 over 2 tanna sidoo kale sameynaysaa waa isku mid waa idoo square root garaysan waa idoo square garaysan 2 times 1 waa 2 plus 1 waa 3 3 over 2 ay noqonaysaa sidoo kale times marka isku dhufatay 3 times 3 maxay noqonay 9 2 times 2 maxay noqotay 4 haddana daartana si jajabiso waxaad sameynaysaa long division Allah calaamada dheer saaraysa long division sagaalkii ayaa dhex soo gelisay 4 dina kor saartay in waxa mataqaana 9 over 4 sameen 9 gudaha gelisay 4 banaanka dhigta oo qaybinaysa markii mataqaana afar wax lagu dhufto 9 ku siinay ma jira maya maxaa ugu dhow laba kor saaraysa 2 times 4 maxay noqonay waa 8 hoos dhigo kala jir meesha waa kala jiraysa waa minus marka kala jirto waxa ku soo haraysa 1 xisaab maxay noqotay 2 whole number 1 over 4 tanana sax xisaabta sidan ay ku sax tahay ka waa homework ay nidire xisaabta hore way taas tan maanta qaadanayno waa number b what is the value of 8 over 9 square root squared what is the value of 8 over 9 sidan xisaabtan maxay tahay value-geedu wuxuu noqonayaa laba jeer ku dhufanaysaa taas macnaha calaamada waxa ay tahay mistu laba jeer ku dhufanaysaa 8 over 9 times 8 over 9 markaas ku dhufato 8 times 8 maxay noqonaysaa 64 ay noqonaysaa 64 9 times 9 maxay noqonaysaa 81 ay noqonaysaa okay xisaabtana saas ay sax ku tahay oo waxa si masi kala qaybinaysid saas intaas aad ku keenaysaa marradan ku celinaa waxa what is the value of 8 over 9 squared 8 over 9 oo la isku gareeyay xisaabtada maxay noqonaysaa 8 over 9 times 8 over 9 ay noqonaysaa which is equal 64 over 81 okay number c what is the value of maxay tahay 3 whole number 1 over 4 squared idina 3 whole number 1 over 4 squared maxay tahay xisaabtan question mark saaran waxay noqonaysaa tan times 2 ka dhigaysaa waxaad leedahay 3 whole number 1 over 4 times 3 whole number 1 over 4 intaas sameynaysaa kadib sida hadaan inay tusay fraction-ka markaad ku dhufanayso inta ka bilaabaysaa waxaad leedahay 4 times 3 afar lagu dhuftay 3 maxay noqonaysaa 12 ay noqonaysaa hal ku darso maxay noqonaysaa afar lagu dhuftay 12 ay noqonaysaa hal ku darso 13 ay noqonaysaa okay 13 waxay noqonaysaa 13 over 4 tan kalena waa lamido 4 times 3 waxay noqonaysaa 12 plus 1 13 over 4 times damar 13 times 13 maxay noqonaysaa 13 lagu dhuftay kor ku xisaabiyo taasa waxay noqotay 169 noqotay 4 times 4 maxay noqonaysaa 16 marka waxay noqonaysaa 169 over 16 okay waad si jajabinaysaa waxa lagu weydiiyay meeshan convert u bedel lagu dhahay the mixed fraction waxa isku bedeshaa to improper fraction u bedelaysaa marka waad si qaybinaysaa long division saaraysaa 169 loo qaybiyo 16 maxay noqonaysaa 1 saar 1 times 6 uu noqonayaa 1 times 1 uu noqonayaa 16 waa ka jirtay 9 ku soo hartay 0 saar 0 9 ka jar waa isla 9 marka waxay noqonaysaa 10 whole number
9 over 16 xisaabtana tan saasa u daynaysaa insha Allah walaalayaal xisaabta waa noocaas haddaadan fahmin marka laan inagu celin doonaa insha Allah tacaala maanta cashirkan intaas noogu joogayaa ballanteena waxaa in aad aqoon bile academic aad subscribe saartaan insha Allah tacaala oo wax badan ka faa'iidi doontaan aad u mahadsantihiin assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh